waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee aktarka caanka ah ee Seif Cali Khan kadib markii kooxa tuuga ay ku weerareen gurigiisa. Intaan gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Aktarka caanka ah ee Bollywoodka ee Seif Cali Khan lagu magacaabo ayaa isbitaalka loola cararay kadib markii ay koox tuuga ah ku weerareen gurigiisa. Seif Cali Khan ayaa la sheegay in koox tuuga ay ku weerareen gurigiisa kadib markii ay dhowr toorey ku dhufteen ay isaga baxsadeen halkaasi. Waxaa la sheegay in dhaawacyo culus ay ka soo gaareen halkaasi. Weerarkan lagu qaaday aktarka caanka ah ee Seif Cali Khan ayaa dhacay subaxnimadii hore ee Khamiista isaga oo ku sugan magaalada Bombay ee dalka India halkaasi oo uu qoyskiisa ku nool yahay. Booliska magaalada Bombay ayaa warbaahinta BBC-da waxay u sheegeen in gacanka hadal uu dhaxmaray Seif Cali Khan iyo kooxdii tuugada ahaa ee gurigiisa u soo dhacday saqdi dhexe ee Khamiisnimadii shalay. Waxayna sheegeen in dhowr toorey ay ku dhufteen kadib loo qaaday isbitaalka kooxdii tuugada ahaana ay halkaasi ka baxsadeen. Qoyska aktarka Seif Cali Khan ayaasan wax war ah ka soo saarin dhacdadan lagu beegsaday aktarkan. Khan ayaa loo qaaday isbitaalka ugu weyn ee magaalada Bombay si halkaasi loogu sameeyo 2 qalliin oo waaweyn kadib dhaawacyadii ka soo gaaray mindidii lagu weeraray. Madaxa howlgalka isbitaalka la geeyay aktarkan ayaa warbaahinta BBC-da waxa uu sheegay in aktarka ay ku dhacday 6 toorey mid ka mid ahna ay dhaawac xoogan u geysatay laf dhabarta agteeda. Waxa uuna sheegay in saacado gudahooda uu ku gali doono 2 qalliin oo degdeg ah taas oo ah mid lagu badbaadinayo. Mid ka mid ah dhaawacyada waxa uu ka soo gaaray meel u dhow laf dhabarta. Waxaan ku sameyn doonaa qalliin degdeg ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaanu ka adeejin doonaa dhaqaatiir khibrad u leh in ay qalliinkaasi sameeyaan oo la tacaalaya xaaladda aktarka ayuu sheegay madaxa howlgalka guud ee isbitaalkan. Booliska ayaa bilaabay baaritaanka ku aadan kooxdii tuugada ahayd ee weerartay aktarkan iyaga oo howlgal ka wada magaalada Bombay ee dalka India. Warbixin la sii daayay subaxnimadii hore ee Khamiista ayaa koox ka dhow aktarka waxa ay ka dalbadeen booliska iyo warbaahintaba in la dhowro xogta gaarka ah ee aktarka maadaama uu yahay aktar caan ah xogtiisa in si gooni ah loo ilaaliyo oo warbaahinta aan loo soo bandhigin waxyaabaha qaar.